waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan. waxaan halkan ku guddoomay saakay ka wasiir gargaar ahaan iyo guddiga abaaraha ee dowladda sahaydii labaad diyaaradii labaad oo na soo gaartay waddanka walaalaheen imaaraadka carabta. wafdiga uu hogaaminayo walaalkeen maxamed kacbi bisha cas ee imaaraadka iyo safaaradda Soomaaliya u joogta dalka imaaraadka. dhammaan dowladda imaaraadka iyo shacabka imaaraadka waxaan uga mahad celinaynaa xaaladan adag ee ummadda Soomaaliyeed ay wajahayso xilli abaaro daran oo dalka uu ku jiro xaalad bini aadanimo oo degdeg ah. waxaana ku dhawaaqay mar labaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble. marka waa uga mahad celinaynaa Soomaaliya markan xaaladahan ay ku jirto dadka way ka jeceshahay cidii u dhagan nuglaata baaqyada dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay dirayso walaalaheen imaaraadkana. waa markii labaad ay hadda diyaarad sahay gargaar wada oo raashin ah ayna soo gaarsiiyeen. marka waxaan leeyahay intii noo gargaartay ilaahay ha u gargaaro. weli waa taagan yahay baaqi, weli waa taagan tahay xaaladii adkeyd, weliba xilli adag oo dalka doorasho uu ku jiro ay dadka waxyaabo fara badan aysan fursad u helaynin. marka ummadda Soomaaliyeed inta gudaha joogtay inta dibadda joogtana waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay isu gargaaraan. dowladda dadaalkeedana in loo dhagan nuglaado. saaxiibada Soomaaliyana waxaan ka rajaynaynaa inay xilligan adagna garab istaagaan. dowladda imaaraadka mar kale waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin dadaalkooda fara badan, gaar ahaan maanta ra'iisul wasaaraha imaaraat أخي عزيز محمد التبي. شكرا جزيلا.